Indonesia waa dal dhaca koonfur bari qaaradda Asia. Muuqaalkan waxaanu kaga hadli doonaa sidee diinta Islaamku ay ku soo gaadhay dalkani, si qaabkee ayay ugu faaftay gudaha dalka Indonesia. Ka hor diinta Islaamka, shacabka dalkani Indonesia waxay ahaayeen kuwa haysta ama aaminsan diimaha Buddhismka iyo Hinduuska. Taariikhda Islaamka ee dalkani Indonesia ayaa ka soo bilaamaysa qarnigii labaad ee taariikhda Hijriga oo ku beegneyd qarnigii 8aad ee taariikhda miilaadiga. Taariikhyahanada ayaa sheegay inay jiraan dhowr arrimood oo ka qayb qaatay in diinta Islaamku ay soo gaadho dalkani. Arrinta koowaad ee lagu sababeeyay in Islaamku ku fido dalkan ayaa lagu sababeeyaa inay tahay in diinta Islaamku ay gudaha dalkani ugu faafto qaab ganacsi, kaasi oo ganacsato Carbeed ay safar ku yimaadeen deegaanada dalkani, halkaasi oo ganacsigooda ay u soo iibgeyn jireen agabkooda ganacsi. Arrinta labaad ee taariikhyahanadu ay sheegaan ayaa ah in culimo Suufiyiin ahi kuwaasi oo ka soo socdaalay gobolka Gujarat ee dalka India ay soo gaadheen dalkan Indonesia. Qarnigii 15aad ee taariikhda miilaadiga ayaa waxa kordhay xawaaraha ay diinta Islaamku ay ugu faafayso dalkan iyo deegaano kale oo jaarla ah. Marba marka ka sii dambaysa ayaa diinta Islaamku ay ku tallaabsanaysay horumar baaxad leh ilaa iyo laga soo gaadhayay qarnigii 20aad ee taariikhda miilaadiga oo Islaamku ay noqdeen kuwa calanka u siday iska caabinta guumaystayaashii reer Yurub, gaar ahaan Ingiriiska. Sanadkii 1946 ayaa Indonesia waxay ku dhawaaqday madax bannaanideeda iyada oo noqotay dalka labaad ee ugu muslimiinta badan dalalka muslimiinta, balse in muddo ah kadib waxay noqotay dalka muslimiinta ugu badani ay ku nool yihiin kadib markii ay kala qaybsameen dalalka Pakistan iyo Bangladesh sanadkii 1971. Haddaba tirada muslimiinta ku nool dalkani ayaa ah in ka badan 225 milyan oo ruux. Boqolkiiba 99 muslimiinta ku nool dalkaasi ayaa ah muslimiin Sunni ah oo haysta madhabka Shaaficiga, halka boqolkiiba halna ay yihiin Shiico.